madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada ardada sharafta leh ee maanta halkan ka qalin jabinaysa jaamacadda Burco waalidiinta soo barbaarisay ee la soo halgantay maamulka jaamacadda kulliyadaha macallimiinta maamulka gobolka iyo degmada marti sharafta kale ee joogta assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad bay sharaf weyn u tahay inaan maanta ka soo qayb galno munaasabadan ardada jaamacadda maanta ka qalin jabinaysa madashu waa madal farxadeed waa madal arday muddo dheer lagu soo tabcayay maanta ay shahaadadihii jaamacadda ka qaadanayso waa madal aqooneed waxa kaliya ka furani waxa weeye in ardaydana lala dabaaldego mooralkooda kor loo qaado waalidiintii muddada la soo shaqaynaysay ee gacanta ku soo haysay ee duruufaha kala duwan carruurtan ku soo barbaarinaysayna ayagana aad iyo aad loola dabaaldego marka ugu horreysa waa inaan guddigeen wada ogaanaa nabadi marka ay jirto ayaa nolol horumar la higsanayaana ay jiri kartaa maanta haddaynaan nolol haysanin oo nabadgelyo haysanin oo duruufta nabadgelyo aynaan ku noolayn sinaba umay suuro gasheen quruxda ubaxa dhallinyarada ee halka joogay habliyeennama leh inaynu ku dabaaldegayno min madaxweyne min waalidkii mid dhallinyaradii inaynu noloshan maanta sidaan u dabaaldegaynaa sinaba uma jidhacdeen sideedabana waxaa la idhahdaa meesha nabadi jirto ayaa horumarna jiraayoo laga beegsan karaya maadaama sidii guddoomiyaha jaamacaddu uu sheegay ardadu xilliyadii aanay Soomaaliland jaamacadaha ka jirin duruuf dheer iyo meel dheer iyo waqti dheer iyo duruufo adag ay ama koorso ama shaqo ugu raadsan jireen xamar maanta inanku iskuulkii halkii uu elementariga ka galay ayuu jaamacaddana ka gelaya taasa aad iyo aad arrin taariikhi ah oo nololeed ah markaad joogto Burco iskuulka Sheekh Bashiir ee iminka dugsiga sare ee Burco waa iskuulkii taariikhda Soomaaliland ugu horreeyay ee ay habla ka baxaan iskuulka Sheekh Bashiir iyo jaamacaddu 400 tallaabo isuma jiraan waa wax lagu faano waa nolol higsi leh waa waxyaalo maxaan ku raadayay qayb ay ka tarayeen waxaan anigu kula doonayaa inaan ardaydan maanta u soo jeediyo taariikhda cilmiga ee adduunyada gabi ahaanteedaba haddii dib loogu noqdo ilaa laydharka inoo baxaya ilaa gaadiidka aynu wadano ilaa cilmigan adduunyada maanta la isku isticmaalsanaya ciddii nuclear power leh ayaa maanta adduunyada veto power leh ilaa iyo hindisaha nuclearka ilaa iyo wixii u horreeyey dadkii hindisay ee innovationka keenay waa daayartiina maalinta ka qalin jabinaysa jaamacadda sida laashligeed waxaynuna ognahay oo kolle macallimiintiinuna idiin sheegtay dad fara badan inay idiin sheegayaan waxaan researcheska la idhaahdo ee lagu hindiso marba technology-ga cusub iyo cilmiga cusub inta badan jaamacadaha ay ka soo baxaan waxaynu u baahannahay markaa jaamacadaheenna inaynu hal abuur dib ugu celinno odhanaya inay ardaydu iyo jaamacaduhu cilmi baadhis sameeyaan cilmi baadhistaa dabadeedna laga fekero dadka kambaniyada iyo shirkadaha iyo hantiilayaasha dhaqaalaha haystaana dee jaamacadaha ay ka iibsadaan xukuumadda iyo maamulada dowladda jirtana maamulada la rabo sida loo korinayo
waxa loo baahan yahay in iyaguna halkaa ka qaataan waayo waxa dhaqan inoo noqotay inaynu hadda jeer nidhaahno ardaygu markuu jaamacadda ka baxo ama markuu dugsiga sare ka baxo in la yidhaahdo ardaygu shaqaha doonto laakiin waxay u baahan tahay jaamacadaha in laga hirgeliyo waxyaalahan la yidhaahdo researchka jaamacadaha laftooda laga hirgeliyo departmentada researchka inaynu dabadeedna samayno inaynu arrimahan aynu wax ka soo saarno oo aynu hirgelino oo aynu maxaanku idhaahdayey aynu hawshaa galno mararka qaarkood waxyaalahaynu ka cabanno ama challengeska jira ee dalka maanta ka jira waxa weeye waa qabiilka waa laba waa shaqaaqooyinka nabadgelyo darrada ee dhaca marka waxaynu u baahannahay dad jaamacadaheenu inay researchkaa sameeyeen waay maxay ku dhacday halkay ka timi maxaa sababay maxaa keenay maxaa lagaga gudbayaa oo ay dhallinyaradeennu arrinkaa aad iyo aad ugu tallaabsato arrinta hadda meeyarku halkan ka sheegay waa dhibaato dalka ka jirta waa dhab laakiin sharcigii arrintaa lagaga gudbayay waa yaallaa tii gaadhiga lagu qabanayay wuu yaallaa kii ninka liisa kale maxkamadda lagu geenayay wuu yaallaa gaadhiga meel cidlaa iska yaalla tii lagu qabanayay wuu yaallaa keliya waxaynu u baahannahay oo weliba aniguna aan farayaa dowladaha hoose iyo booliiska mas-uulka ah kama mamnuuc aha ciidamada kale ee qalabka sidee dalka gaadhi fal dambi samaynaya intuu qabto booliiska inuu u dhiibo arrintaa waxaynu u baahannahay inaynu isugu wada tagno arrintaa waxaynu u baahannahay hay-adaha ku shaqo leh inay qabtaan arrintaa waxaynu u baahannahay inaynu sharciga dadka waa la ogolaysiiya adduunyada sharci darradu way soo wada martay waa lala soo kacakufay laakiin waxaynu u baahannahay dadka inaynu sharciga ogolaysiino masale yaro qudhof sahlan baan idiin sheegaya dilku waa kan soo noqnoqda qolada wasaaradda daakhiliga gacanta ku haysa iyo ciidanka biliiska xeer ilaalinta maxkamadaha sababta ugu weyni waxa weeye xagna dhaqankii ayaynu ka isticmaalay xagna sharcigii baynu diidnay inaynu ku fulino nin baa la dilayaa gabadh baa la dilayaa gabadh baa la kufsanayaa waa waxa ugu xunee maanta dalka yaalla inantii la kufsaday ilaa aabbaheed baa laaluushka ka qaadanaya de miyay socon karaysaa miyay bulshadeennu hagaagaysaa xaalku show laaluush maaha dabeedna waxaa la soo yaro asturabaa la odhanayaa carruurteennana yaynaan dembi ka gelin waana kaysaska ugu badanee maanta dalka ka dhaca waxaynu u baahannahay markaa haddaynu sharciga hirgelin kari weyno dhibaatooyinka ka bixi kari mayno arrintii dilka maxaa soo celcelinaya laba reer baa wada hadlayo dabeedna waa caynkaasoo tol baynu naho xidid baynu naho arrimahaasaa jiro waa kaasoo ninkii inanka dhalay waabuu iska saamaxaya qabiilkii wax laga dilay way saamaxayaan magtii la bixin maayo dabeedna waxay magtii la bixin la-aantii waxay keenaysaa inuu dilkii soo noqdo waxaan ku soo ururinayaa haddii aynu doonayno arrimahan oo kale jaamacadaha meel baa uga furan ay research ka sameeyaan oo kaa la raaco oo dowladaha hoose raacaan oo gobolladu raacaan oo wasaaradda daakhiligu raacdo oo biliisku raaco oo xeer ilaalintu raacdo oo maxkamaduhu raacaan oo madaxweynuhu raaco intaasoo dhan way isku wada ragaban tahay marka aad iyo aad baan idin hambalyaynaynaa aqoonta halkaa ha kaga hadhina hadda nin walooba iyo inan walooba dariiqaad soo martay dib u eeg iskuulkii elementarigii misaad kaga timi dugsigii dhexe imisaad kaga timi dugsigii sare imisaad kaga timi imisaan jaamacad gelin dadaalku halkaa idinkaga dhammaan shahaadadaha dambena iminka qaata dib jaamacadaha u sii gala arrinta wixii kalena waxaynu doonaynaa inaynu isla hagaajinno kelmaddan kaga baxaya waxa weeye waagii dhaweyto xaaladaha dhaqaale darrada ee jira ayaa keenay waa tii xukuumaddu soo rogtay shaqo qaran si jaamacadaha iyo ardayda jaamacadaha ku jira loo hirgeliyo oo loo dhiirigeliyo
dawladdu shaqaalaha ay qaadanayso waxa loo wareejiyay in ay noqdaan shaqo qaran dabadeedna shaqadii qaranka kootadii waa la qaybiyey gobollada loo qaybiyey gobol waxa la isagu gobolkiisa imtixaan ha ka soo galo si aan loo odhanin gobol heblaayaa loo badiyey iyo reer hebel baa loo badiyey marka imika waa lagu kala cawdaayo dee markii koota laga dhigay ee jaamacadihii la gaadhsiiyey ee jaamacadihii imtixaankii la galay ayaa dabadeedna farsamooyinkii aynu xagga reeraha kaga xisaabtami jirtay de kootadii way surugtayoo waxa layaa 3 isdhalay oo maalin jaamacad ka wada garaajood garoobay haddaba 3 isdhalay odaygiiyo master qaatay inantiisii oo shahaadad qaadatay inantiisu inantay dhashay oo jaamacaddii ka baxday marka waxaynu u baahannahay magaalan kaga baxayaa magaaladan burco sidii iskuulka sheekh bashiir ay sheegayay waa dhulkii tacliinta ugu horreeyey sheekh burcay ka tirsanaan jirtay intaan berbere loo wareejin secondarygii ugu horreeyey raggii ka baxay waa la garanayaa gadaashan dambe tacliinta kuma yara wanaagsanin burco dib ha ugu noqoto arrintii tacliintii dhallinyaradu aad ha u dadaasho jaamacadda aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa ballaadhinta jaamacadda ay ballaadhisay halkan waa ta ku qaran waxay member of association ka tahay jaamacadaha dalalka carabta oo dhan bay ka tahay insha allah kuwa geeska afrika iyo kuwa afrikana way ka mid noqon doontaa jaamacadda hormuudka kulliyadaha guddiga jaamacadda guddigood waan hambalyaynaynaa waxaan leenahay aad iyo aad baanu idin hambalyaynaynaa ardayda waxaan leenahay guul ardayda waxaan leenahay allah idin barakeeyo waalidiintii ku soo tacatayna waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu